Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga waxaan jiraa 23 sano. Magacaygana waa Caysha. Waxaan bartaa saynisyaan. Waxaan ahay gabar saynisyaan ah. Maanta xaggan waxaa soo istaagay qiso xanuun badan inaan nooga sheekeeyo ee ku dhacday wiil Axmed la dhaho. Wiilkaasoo Axmed ah ee magaalada qisidiisa caanka ahayd. Aabihiis wuxuu ku dhintay shil gaari. Hooyadiisna xanuunka la dhaho kansarka ayaa la dhimatay. Axmed dunida kaligiis ayaa ku haray. Hooyadiis iyo aabihiisna maysa joogin. Markii dambe wuxuu Axmed u tagay aabihii saaxiibkiis. Wuxuu ku dhahay meel aan saxdaan raba gurigaaga meel iga sii. Aabahii saaxiibkiis maahan. Odagii ayaa ku dhahay gurigayga meel ka sii maayo. Saaxiibkeena wuu dhintay. Marka meel aan ku siinay male banaanka hadda ee bax gurigaygana ku sii maayo. Axmed markuu intaa ku dhahay Axmed ooyin ayuu la fadhiistay ooyin. Markii dambe Axmed wuxuu sameeyay ayuu garan waayay. Wuu iskaga soo tagay. Dadkana halkaas ila yaabnaayeen cunugga yariiska. Maanta aniga qisidiisa xanuunka badan ayaa inaan noo sheekeeyo. Marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aniga waxaan mar walba Axmed wuxuu soo xasuusan jiray magacaygana waa hadalka hooyadiis ee waxaan bartay saynisyaan. Waxaan ahay hadalkaasi ahayd markuu xanuunsan waxaa soo istaagay ugu dambeysay xanuun badan ku tiraahday ee ku dhacday wiil Axmed. Hooyo markasta Ilaahay tala saaro Ilaahay ee magaalada marsidiisa caanka hadaan ka dhinto. Markasta Axmed hadalkaas soo xasuusan jiray. Hooyadiisna xanuunka dambe Axmed ayaa la dhimatay. Saaxiibkiis dunida kaligiis ayaa ku haray. Axmed markii aabihiisna maysa joogin. Markii dambe wuxuu Axmed meel fog degan ayaa aabihii saaxiibkiis ahaan jiray. Wuxuu ku dhahay dambe ilaa yaraantiisa meel aan saxdaan raba gurigaaga meel iga sii. Aabahii saaxiibkiis maahan. Odagii ayaa ku dhahay gurigayga meel ka sii maayo. Saaxiibkeena wuu dhintay. Markii dambe ilaa ku siinay male banaanka hadda ee bax gurigayga ku sii maayo. Shaqadaasoo intaa ku dhahay Axmed ooyinkaas ayaa maalin kasta ku qaylan jiray Axmed. Markii dambe Axmed wuxuu sameeyay ayuu garan waayay. Lacagta shaqada ayaa ka goosanaya. Dadkana halkaas ila yaabnaayeen cunugga yariiska ah. Axmed maanta aniga qisidiisa xanuunka badan ayaa inaan noo sheekeeyo. Marka dhawaa ka jiranaya. Axmed markaasuu is yiraahday hoosh si fiican u qabo. Odagii markii dambe wuxuu ku dhahay shaqada ayaa ka raacday doonada si fiican u qawaysid. Axmed markaas uu ku tashaday inuu shaqada si fiican u qabto si lacagta loo badiyo. Axmed markuu shaqada si fiican u qabtay ayaa markii dambe uu daalay nasa ayuu isdhahay inta kale markaa nastid ayaa qabanaysaa. Odagii ayaa ku imaaday wuxuu yiraahday wariya aad shaqaale xun ayaa tahay hoos ma qabanaysid. Markii dambe Axmed uu imaad rubax ayuu ku dhuftay. Markii dambe odagii ayaa dhahay aad wasaq ayaa tahay shaqadeeda ma dambe kama shaqaynaysid waa ka tagaysaa maanta laga bilaabo. Axmed ayaa soo kacay oo odagii kala tuuray. Wuxuu ku dhahay shaqadaada waa kaaga tagayaa. Ma rabo shaqadaada. Dib dambe ma rabo inaan wajigaaga arko. Shaqadaada waa kaaga tagayaa. Mishaarka doontina gooso weligaa. Axmed ninka markuu intaa ku dhahay ninkii wuu yaaway. Axmed markii dambe shaqada ayuu iskaga soo baxay. Shaqadii markuu Axmed iskaga soo baxay. Axmed waa qofkii labaad oo la dagaalo. Isku dhacaan. Axmed marka hal isbuuc buu meel u sasaxan iyo meel u jiifta haysan. Axmed markii dambe dhulka ayuu iska sasaxan jiray meelaha ayuu iska fufaysan jiray. Afartii qof ee uu dhawaa ayuu kaga tagay. Uu waayay labadiisa saaxiibood iyo aabihii saaxiibkiis iyo ninkii shaqada ka shaqaynayay. Markii dambe Axmed wuxuu go'aansaday heer noloshiisa inuu gaarsiisto. Axmed muuse rabin inuu la dagaalo ninka shaqaalaha iyo aabihii saaxiibkiis. Wuxuu islahaa maalin un iyo ku bari doonaan. Axmed asagoo maalin meelmaha iska marmaraya oo jawi waxaan iska qaadanaya oo meeluu shaqo iyo ka raadsado raadinaya ayuu markii dambe waxaa arkay oday jidka jiifa oo wadnaha kaga dhaceen oo dhiigga adduunka daadanaya. Markaasuu fiiri inuu odaga nool yahay. Odaga uu nool yahay wuxuu dhahay anaa ku daaweynaya adeer isdaji. Odagii ayaa wuxuu dhahay caawi isbitaal iga caawi aad ayaan u xanuunsanayaa. Wuxuu yiraahday anaa ku caawinaya hadda. Axmed wuu soo baxay wuxuu soo arkay taksiga ayuu u yeeray. Markii dambe wuxuu Axmed geeyay odagii isbitaal.
isbitaalka masaakiinta ayuu geeyay oo lacag la-aan ah. Markii dambe dhakhtaradii ayaa ku tiraahday aabaha si fiican ula dadaal, kiniiniyooyinkana si fiican u sii. Wuxuu yidhi hadda caadi samaa xaaladiisa. Waxaa la yidhaahday gaari ayaa jiray, marka wadnaha ayaa laga hayay, xanuunyo ayaa ku dhashay, fayras ayaa wadnaha ka galay. Markii dambe Axmed ayaa isagoo niyad jabsan meesha dadka lagu soo fadhiistay. Markii dambe odaga markuu soo naaxay, Axmed wuu farxay oo odaga ayaa lagu yeeray Axmed. Markuu odaga u tagay, odagii ayaa wuxuu dhahay adigu yaa tahay? Cunugii yidhi saa tahay, aniga miyaa caawisay? Wuxuu dhahay Axmed wuu asagoo dhul cadeynaya ayuu fadhiistay. Odagii ayaa dhahay waa maasan tahay, abaalkaaga waxaa ku godo ma yaqaan, ee qisadaada maxay tahay? Adiga cunuga yidhi iskaa. Axmed wuxuu ku jawaabo iyo garan waayay, wuu iska aamusay. Wuxuu dhahay qisadeedu waa mid aad iyo aad u la yaab badan, kaalama sheekayn karo. Axmed markaas uu niyad jabay, qisadiisa murugan kaga sheekeeyay. Odaga ayaa gacantiisa qabtay, wuxuu ku dhahay ii sheekee, waa rabaa. Axmed ayaa dhahay maadaama kalsoonisiis waa kaaga sheekeynayaa. Odaga ayaa ku dhahay waayahay ii sheekee. Odagii ayaa markaa wuxuu ku dhahay hadda ii bilow. Axmed isla mar ahaantaa ugu sheekeeyay oo qisadiisa wax ugu soo bilaabo kow ilaa dhammaad. Labadii wiil ayaa Axmed markuu weynaaday shaqadiisa, 2 nin ayaa ka dambeeyay, isla markaana wadnaha ayaa laga qabtay. Wuxuu ka soo bilaabo hooyadiis markii dhimatay, odaga isku dhaceen iyo shirkadii. Odaga markuu intaa maqlay wuu naxay, Axmedna wuu sheekeeyay. Labadooda waxaa ka kala dhimatay 2 qof. Axmedna hooyadiis ayaa ka dhimatay, odagana walaalihiis ayaa xumeeyay. Marka labadooda qiso way xanuun badan tahay. Odaga ayaa ku dhahay anigana qisadeeda hadda ayaa kaaga sheekeynayaa, qisadeeda anigana waa mid xanuun badan. Odaga markuu maqlay wuu naxay, wuxuu yidhi hadda ayaa kaaga sheekeynayaa. Aniga xaaskayga ayaa dhimatay, dunida ugu jeclaa. Axmed markuu intaa maqlay wuxuu dhahay Ilaahay xaaskaaga ha u naxariisto. Odaga ayaa dhahay walaalaha ayagana markii intaas maqleen, gurigii ayaga waa siiyey, way iga qaateen. Aniga markaa waxa sameeyay ayaa garan waayay. Markii dambe ilaa aan noqday nin ganacsado ah. Sheekadii ayuu Axmed u sheekeeyay odagii. Markii dambe Axmed iyo odaga way isbarteen. Axmed markii dambe wuxuu ku dhahay odaga gurigayga ma ii raacsaa? Axmed wuxuu dhahay ma diidaa mise ma ogolaatid? Waa ogolaataa. Axmed markii dambe wuu ogolaaday. Odagii markii dambe guri weyn ayuu keenay qasri ah oo odaga leeyahay. Markii dambe Axmed wiil odaga wuxuu siiyay jacayl, hadiyadadan uu keeni jiray markasta. Axmed markaas wuxuu ogaaday macluumaadii u dhigi jirtay markaas inay maxahed ninka odaga xaaskiisa yihiin. Markii dambe jaamacad ayuu galay Axmed, jaamacadaas uu baranayay dhakhtarnimo. Markii dambe Axmed iyo aabihii ayaa wuxuu ku dhahay aniga aabbo aan ku noqdo. Axmed marka arintaas iskula dhaceen, markii dambe Axmed wuu ka ogolaaday. Markii dambe Axmed shirkad weyn ayuu lahaaday, shirkadaas iyo markasta khudbad u soo jeedin jiray. Markii dambe shaqaalihii iyo dadkii dhan ee hadaay ay gumaysan jiray waagu faqiirka ahaa, hadda ayaga baryaya oo saaid u baahan. Axmed waa wiil yar oo heer isu soo gaarsiiyay. Ayagana marka ma xasuustaan sidii markii yaraa u gali jireen. Hadda labadooda waa 2 aad iyo aad isku jecel. Markuu yaraa ayuu soo qabtay oo badbaadiyay. Hadduusa saacadan badbaadin lahayn odagaas, Axmed noloshiisa ku jiri lahayd. Asxaabay, sheekadana intaas ku eg tahay. Like iyo subscribe noo saara. Mac salaama.